ugu baaqay warbaahinta madaxa bannaan ee gobolka Hiiraan ka howlgasha inay ka shaqeeyaan sidii ay u tabin lahaayeen warar xaqiiqada ku saleysan horumarna u ah bulshada gobolka. Waxa uu yiri kuwa saxaafadda waxaan si gaar ah u sheega waa iska ilaabi tagay waxaan si gaar ah idigu sheegay wiilashiina bilaa dheer wata waxaan isla ogeyn hadaad sheegtiin aduguna jeebkiina waay waxaan isla ogeyn hadaad sheegtiin jeebkiina waay hadaad telefishin ka arko waxaan isla ogeyn jeebkiina waay dalkan aad u dhalateen oo ka soo jeedin oo madaxdii biri oo mustaqbalka tiile waxaan isla ognahay ka shaqeeya dalkan wax u dana ka shaqeeya waxa dalka ceeb ku ah hadday dhacaan hataa qariya ma la qarina saxaafaddu hadday dhacaan hataa inkisay dhacaan wala xun oo dalkan xumaan ku ah ceeb ku ah qariya dalkan la isleediin wax fiican ku bedela waxaan ogahay in mid laba af la wadatiin anu daabka inay dagala hayaan rabaa inay igu goynaan rabaa in waxaan ka madaxay ku goynaan rabaa. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalson TV, Beledweyne.